oo jidadka soo furay oo dhiigga daadiyey oo ku dhaawacmay oo qaarkood ku dhintay meelihii ay xoreeyeen kulligood xildhibaanaa ka soo wada jeeda haddii ciidamadaasu furidda iyo cadowga inay marka hore jug siiyaan waaye muxuu ahaa shaqadoodii haddii dib shabaab u qabsado oon abaabulkeedii iyo abaabulkii magaalooyinka iyo tuulooyinka aan la imaan weyno oo hoggaanku ka gaabiyo oo xildhibaanadu ka gaabiyaan oo muxuu ahay laga wada gaabiyo nasiib darray nagu tahay fursaddaas noo furan kulligeenay noo furan tahay qofkii qaldamay qaladkiisii waa la tusay kaan la tusina kii la tusay oo arkay oo sida guddoomiyuhu ka kaftamay waa ku quus qaatay kii qaladka soo jeediyey waa la dhegaystay oo si dadnimo leh loo dhegaystay oo looga jawaabay kii ka aamusay waa loo garaabay oo weliba mahadnaqa loogu daray waxa la yidhi waa waxa jira waxa la sheegay waa gar duruufaha jira oo ciladahan keenayna waa ka wada hadalnay waana ka garaawnay waxaan mahad u celinayaa dhammaan xildhibaanada iyo hoggaanka hirshabeelle iyo shacabka iyo salaadiinta oo runtii rajo badan iyo laxajeclo badan ka muujiyey deegaanka ay ku nool yihiin rabana inay dawladnimo fiican ay u toosto sida madaxweyne ku-xigeenku hortay u sheegay haddii saxiddaas iyo tusaalayntaas aan wax ku qaadan weyno ood u aragtaan inaanan dadkan hirshabeelle noloshooda iyo amnigooda iyo waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda dadkii meel gaarsii lahaa inaanan ahayn hadday idinka soo go'do waxaan annagu diyaar u nahay sidaas dadnimada leh oo mooshinkii uga jawaabnay oo aanan ula dagaalamin oo aanan u dhibin oo aanan gar isu siin inaan idin idhaahdo ma saasaad garateen haa xilka awalba idinkaa noo dhiibtay waa idiin soo celinaye waa kaas maamul goboleedyada wax badan oo inooga horreeyaanaa jira inta annagu hirshabeelle haddaan nahay aan ku faanaynaa waa intaas talada shacabkaa iska leh shacabka xildhibaanaday soo wakiisheen xildhibaanadu hoggaankay doorteen hoggaanka saraa la doortay talada xildhibaanada iyo shacabkaa iska leh maalinka idinka soo dhammaato oo wada hadal aan wax iskula keeni wayno ood quusataan waxaan diyaar u nahay inaan idinku soo celinno wanaagga idinkala shaqayno adinkana waxaan rajaynaynaa inaad wanaaggaas nagala shaqaysaan aadaan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu